kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah xog laga helay isqabqabsi xoog leh oo ka taagan cidda loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo warar sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku booday Siciidani oo xusul duub ugu jira jagada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo shaaciyay arrin la yaab leh oo ka xanaajisay madaxweyne hore Farmaajo kadib markii uu maanta tagay Villa Soomaaliya kulan xasaasi ahna uu la qaatay ra'iisul wasaare Roble. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo durba bilaabay sidii uu ku soo celin lahaa xiriirkii xumaaday ee dawladaha qaar ee Carabta. maxaa ka soo baxay kulan uu maanta la yeeshay safiirada dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga. qodobada kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo war aan laga filayn ka soo saaray doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee uu ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud. haddaba miyuu madaxweyne hore Farmaajo caqabad ku ahaa xukuumadda Hargeysa iyo maamulka Galmudug oo war cusub ka soo saaray waxa laga yeelayo haddii gacanta lagu soo dhigo Sheekh Shaakir oo hogaaminayo kooxdii Ahlus Sunna ee waayahoodii la soo afjaray. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Arbaco 18 bisha shanaad ee May sanada 2022 barnaamijkan si shargareeya oo u sii gudbiya saaxiibadiina kale idinku jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aynu ku bilowno wararkeena. xogaha aynu helayno ayaa sheegaya in isqabqabsi xoog leh uu ka taagan yahay shakhsiga loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya marka uu si rasmi ah xilka ula wareego isla markaana uu dhex fariisto Villa Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa loo baahan yahay in uu soo magacaabo Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda soo socota hogaamin doona. wararka la isla dhex marayo ayaa sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo in uu xagaldaacin ku sameeyo heshiis uu la galay Siciidani hogaamiyaha maamulka Puntland kaasi oo ahaa in laga talageliyo shakhsiga loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ama isaga naftarkiisa uu qaato doorka ra'iisul wasaaraha. haddaba warar lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in Xasan Sheekh Maxamuud uusan kalsooni badan ku qabin inuu markaasi la shaqeeyo Siciidani amaba xitaa uusan doonaynin shakhsi markaasi Siciidani uu keensado maadaama Siciidani uu yahay nin markaasi aad u dhib badan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo badinayaa inuu markaasi soo magacaabi doono shakhsi aanan la filaynin. warar soo baxaya saacadihii u dambeeyay ayaa sheegaya in suurtagal noqon karto in weji horey loo yaqaanay la magacaabi karo iyadoo dadka qaar isla dhex marayeen in Cabdiweli Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya madaxweynaha ka soo noqday maamulka Puntland ay macquul noqon karto in loo dhiibo jagada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. balse waxa markaasi la arki doonaa Xasan Sheekh Maxamuud sida uu markaasi uga soo baxo heshiiskii lala galay iyo sida uu ilaaliyo in markaa loo wada markaasi guuleeyay isaga markii loogu shubay codadkii markaasi Siciidani iyo waliba sidoo kale oo kuwa Axmed Madoobe isaga naftarkiisa kaalin ayuu ku lahaan doonaa ra'iisul wasaaraha markaasi la soo magacaabayo oo waxaaba wararka qaar ay sheegayeen in Axmed Madoobe uu doonayo in markaan jagada ra'iisul wasaaraha loo weeciyo shakhsi markaasi ka soo jeeda beesha uu Axmed Madoobe ka soo jeedo ee ogaadeen. si kastaba lama saadaalin karo tallaabada uu qaadi karo Xasan Sheekh Maxamuud balse waxaa la sii og yahay in uu markaasi ka bixi doonin xayndaabka xubnaha mucaaradka uu markaasi kula jiray. haddii kale waxaa markaasi suurtagal noqon karta in laga soo horjeesto oo markaasi loo mucaarado sidii dawladdii Farmaajo oo kale. dhinaca kalena Axmed Madoobe muddo sanad ah kadib waxa uu maanta tagay Villa Soomaaliya waxa uu weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu tilmaamay in Farmaajo uu Villa Soomaaliya ka dhigtay meel uu isagu leeyahay. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa maanta sanad kadib gudaha u galay xarunta Villa Soomaaliya isagoo oo kulan gaar ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Ibraahim Macalimo oo qoraal kooban ka soo saaray booqashada Axmed Madoobe ee madaxtooyada waxa uu yiri madaxweyne Axmed Madoobe ayaa maanta soo gaaray madaxtooyada Soomaaliya oo ay ugu dambeysay dhamadka September 2020 markii heshiiskii 17 September la gudagalay ee dhaqangalkiisa. waxaa xafiiska ku qaabilay oo soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Roble. Axmed Madoobe ayaa lagu soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee Villa Soomaaliya. Roble iyo Axmed Madoobe ayaa kulankooda oo saacado badan qaatay uga hadlay xaaladda dalka iyo sidii markaasi ay ku soo dhamaatay doorashadii ay mucaaradku ku guuleysteen. waxay ka wada hadleen gabagabada hawshii doorashada dalka ee guusha ku soo ilaatay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. madaxweyne Axmed Madoobe
oo sidoo kale kulanka ka hadlay ayaa Rooble uga mahad celiyay sidii uu hogaamiyay hawshii doorashada dalka iyo dhabar adeegii uu muujiyay si uu uga miro dhaliyo doorashadii dalka oo ku soo ilaatay markaasi si nabada. Kulanka ayaa u muuqday mid markaasi dabaaldeg ah, sidoo kalena markaasi looga diganayay madaxweyne hore Farmaajo iyo inuu ahaa ismarxabeen kadib guushii doorashada Soomaaliya ay ka wada gaareen mucaaradka iyo go'aankii laga gaaray doodii xildhibaanada gobolka Gado oo Axmed Madoobe uu ku guuleystay, maadaama gudoomiyaha baarlamaanka uu meel mariyay xubnihii ka soo baxay ceel waaq. Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa maalmihii u dambeeyay ka wada Muqdisho abaabul ku aadan qorshe uu markaasi ku wajahayo gobolka Gado oo gacantiisa ka maqan, wuxuuna doonayaa isagoo kaashanaya saaxiibadiisa in dowladda cusub ay ciidamada ka soo saarto gobolkaasi. Soomaaliya ayaa haatan ka gudubtay xaaladii adkeyd iyo ismariwaagii taagnaa kadib isbeddelka ku yimid hoggaanka Villa Soomaaliya oo mar labaad loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Hagaag dhinaca kale haddii aynu fiirino, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu durbaba bilaabay in uu markaasi soo celiyo xiriirkii xumaaday dowladaha markaasi carabta qaarkood. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah safiirada Carabeed, gaar ahaan wadamada Sacuudiga, Qatar iyo sidoo kale Imaaraadka. Ugu horeyn, madaxweynaha ayaa hoygiisa waxa uu markaa ku qaabilay safiirka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya Axmed Mohamed, iyagoo ka wada hadlay danaha labada dhinac. Kulanka ayaa sidoo kale ujeedkiisu waxa uu ahaa salaan iyo hambalyo uu safiirka la wadaagay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale, madaxweynaha cusub ayaa waxa uu la kulmay safiirka Qatar u jooga Soomaaliya Ambassador Xasan bin Hamaza, isagoo ka gudoomay hambalyo iyo salaan. Waxa uu sidoo kale la kulmay safiirka Imaaraadka. Kulamadan ayaa qayb ka noqonaya shirar uu maalmihii dambe madaxweynaha ka waday magaalada Muqdisho si uu u sameeyo wada tashiyo ka hor dhismaha xukuumaddiisa. Guusha Xasan Sheekh ayaa si weyn looga falceliyay, waxaana soo dhoweeyay dowladaha dariska iyo kuwa markaasi arrimaha Soomaaliya daneeya oo carabta ugu horeyso, oo qaarkood markaasi laga diiday amaba laga reebay inay markaasi saameyn ku yeeshaan Soomaaliya intii uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo. Hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo khudbad ka jeedinaya xuska 18 May oo ah markay ku dhawaaqeen inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale, ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo markaasi Soomaaliya quseeya iyo doorashadii madaxweynaha. Biixi ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday qadiyadda Somaliland, wuxuuna ku eedeeyay Soomaaliya inay weli diidan tahay inay helaan aqoonsi caalami ah. Madaxweynaha ayaa xusay Soomaaliya ay aaminsan tahay in Somaliland ay weli tahay gobol iyaga markaasi ka mid ah sida uu ku dooday. Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday doorashadii madaxweynaha ee dhowaan ka dhacday teendhada Afisiyoni, isla markaana mar labaad xilka loogu doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday inuu soo dhoweynayo in si nabad ah ku dhacday doorashadaasi, isla markaana ay talada isku dhiibeen labada madaxweyne. Sidoo kale, waxa uu ugu duceeyay madaxweynaha cusub inuu Alle u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee markaasi loo igmaday. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo dhowaan gudoomiyaha xisbiga mucaarad ku ciiday Somaliland uu bogaadiyay doorashadii Afisiyoni una hambalyeeyay Xasan Sheekh. Somaliland ayaa caqabad weyn u aragtay madaxweynaha xilka ka sii degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo ay sheegeen in uu caqabad ku ahaa, waxa ayna hadda u muuqdaan kuwo markaasi soo dhoweynaya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay u arkaan inuu markaasi ka dabacsan yahay madaxweynihii ka horreeyey. Ugu dambeyntiina, booliiska dowlad goboleedka Galmudug ayaa markaasi sheegay in sababta ay u doonayaan in la soo xiro 36 qof oo ka tirsan saraakiisha ururka Ahlusunna wal Jamaaca oo uu ku jiro hogaamiyahooda Sheekh Shaakir ay tahay sidii loogu maxkamadeyn lahaa dembiyo ay sheegeen inay ka galeen dadka reer Galmudug. Ururka Ahlusunna ayaa dagaal hubeysan kula jiray maamulka Galmudug iyaga oo Jimcihii la soo dhaafay weeraray magaalo madaxda Dhuusamareeb, halkaas oo dad badan ay ku dhinteen. Booliiska ayaa rumaysan in xubnaha la raadinaya qaarkood ay u baxsadeen maamulada kale ee dariska la Galmudug, halka kuwa kale ay ku dhuumalaysanayaan miyiga magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel iyo sidoo kale Matabaan. Waxayna sheegeen in taas aan markaa looga hari doonin, isla markaana la maxkamadeyn doono oo xitaa hogaamiyahooda Sheekh Shaakir maxkamad la soo taajin doono. Taliyaha waxa uu sheegay in haddii ay gacanta ku soo dhigaan raggan ay raadinayaan oo uu ka mid yahay Sheekh Shaakir, in markaasi aanan laga gamban doonin oo cadaaladda markaasi la horkeeni doono. Waayihii kooxda Ahlusunna ayaa gabi ahaanba la soo afjaray, iyada oo hadda kooxdu ay tahay kuwo markaasi kala carar iyo anfariir uu ku dhacay markii ay soo weerareen dhowaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena. Tan iyo warkaan war la mid ah, intaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad.
nabadgelyo.